الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن شاء الله تعالى maanta waxaan bilaabi doonaa kitaabka المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه oo loo yaqaano متن الجزرية بإذن الله تبارك وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco oo maaragtay naga dhigo kuwii quraanka jeclaado oo quraanka iyo cilmigiisa barto. Ilaahina uu nagu sharfo insha Allah ta'ala inuu naga mid dhigo kuwa quraanka xambaaray ee jiilba jiil u sii gudbiyay بإذن الله تبارك وتعالى. كتاب المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه oo loo yaqaano مقدمة الجزرية، ومن أهم الكتب في هذا الفن. كتبته أو مهم فن كان أيو كمدي هاي إن شاء الله تعالى ما أنت مركه هو حنكها اللي دونا محالي هذا 14 وأنا سوق عضني، لكن ما أنت إن شاء الله ونصوب الله بدونا بإذن الله سي ولا لها عصبنا يوصو تحمضان بإذن الله تبارك وتعالى. ما أنت وحنكوه الرين دونا إلهي إذن كيس ترجمة الإمام الجزري محمد بن محمد بن علي الجزري. علماء تراجمته إذا إن لبرته وهي كمتها من الدين محايا لي وعملكي ولا تطبيقي وحان كفا إذي سننا همده عالقة علماء وإلى هايين سيطل علمي قوضل بجرين إخلاص كودي عملك إله سبحانه وتعالى وقوء رزاقي إنay ikhlaas u sameeyaan juhudi ay u soo mareen iyo maartay juhdiga ay ku bixiyaan cilmigan. Anagoo maantayto cilmiga meel walba naga yaala Soomaa telefoonadii ku jira meel walba yaala maca dalika waxa laga yaabaa inaan ka faa'iideysan. Marka kitaabka waxaan ka hormarin doonaa insha Allah muqaddima عن الإمام الجزري رحمة الله عليه. الإمام ابن الجزري أبو الخير شمس الدين محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي ثم الشيرازي رحمة الله عليه. كن يديسا وحالي هذا أبو الخير شمس الدين ولقب كيسا محمد بن علي بن يوسف الجزري الشافعي الدمشقي ثم الشيرازي. wuxuu ku dhashay sheekhu raxmatullaahi calayhi magaalada Dimashq taariikhdu markay ahayd 751 lilhijra hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam. meeqa maraysaa maantayto meeqa maraysaa taariikh alhijriga meequ maraya 1442 sooma markay taariikhdu ay ahayd 751 caaman ayuu dhashay رحمة الله عليه. ما قصنا كسو وريكتي تقريبا 800 سنة سما إلى 800 سنة أيا كسو وريكتي رحمة الله عليه. مركا فضل قولي علم الشرعي إن لقى شقايو وكتابك إلهي لو خدمة ديو شيخ انت 800 سنة كهر كتابك وألفي علمي وألفي بما أنتكو انتفاعنا سما هاي مركا وحكمت هاي من محل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكوشاقي waxay amalka jaariga ah oo qofka asagoo dhinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabrigiisa uga dabageyn doono. Inta muslimiin oo baranaysa maantayto muqaddimatu al-Jazariyya iyo culumtii laga soo gaaray sheekh raxmatullaahi calayhi aad bay u farabadan Soomaa 800 sano kadib ayaan halkan u fadhinaa xalqadan anagoo maartay tadaarusayno oo maartay diraasaynayna kitaabkiisii. sheekh abihi Allah naxariista asagana ayaa waxa la sheegay in وماركتي المواجهة كهر إن لو دلي جرين بعض كثير من التراجم وحي شيغان شيخ أبيه إن لو دلي جرين أو سنة كأنتو حج كآدي وبيها زمزم عبي وإله سبحانه وتعالى ويديستئنه كو إرزاقه ويل نقضى إماما في هذا الدين. الإمام دين تنكون نقضى إنه إله كو إرزاقه سنة كتضوب قولي كنت المركوها هجرة أيو أبيه محمد بن محمد أها أيا وحو آذي بالي حجك سنة كاس أيو مركو حجك آذي ما زمزم انتو عبيبو وحو كدو عيستي إلهي إنو كو إرزاقه
walad yakunu caaliman wa imaaman fi hada addiin marka hamigiisa halkaa ka garanaysaa inuu meel fog ka fakerayay ha ilaahu ilmo isii keliya ma dhihina muxuu yidhi ilaahu ilmo imaam ku noqda diintan ilaahu isii ayuu yidhi maaa zamzam sidaa ka warqabtaan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa wuxuu ahaa maau zamzam lima shuriba lahu soo ma qofka wuxuu niyeysto oo ilaahay uu ku baryo ayuu allah ka aqbalaya subxana wa tacaala marka saxaabada iyo salafka waxaa laga soo wariyey inay maaragtay qaarkood allahuma cumar ibn khadaab si laga wariyo allahuma inii sharabtuha lidama'i yowma alqiyaama oonka yowma alqiyaama inaa iga badbaadisid baan u cabbay culamo badan oo salafka ka mid waxaa laga soo wariyey inay ilahay subxaana wa tacaala markay cabbayaan ay ka baryi jireen cilmiga inuu ilaahay u furo waxaa la sheegaa alimaam ibn xajar alcasqalaani almacruuf alfaqih almuxadith raxmat ullahi calayhi in uu yidhi markaan biyaha zamzam intaan cabbay baa waxaan ku ducaystay an yarzuqani allahu tabaaraka wa tacaala bicilmi alimaam الdahabi imaam الdahabi meeshuu ka gaaray imaamada cilmiga iyo xadiidka inuu ilaahay ugu irsaaqo imaam الdahabi asagana waxaa la sheegay inuu saasoo kale uu yidhi siraajuddiin albulqiini fiqiga meeluu ka gaaray inuu ilaahay gaarsiiyo ayaan u cabbay cabdillahi bn cabaas radi allahu canhu waxaa laga soo wariyaa markuu maau zamzam uu cabbayay inuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka cilman naafican warisqan طayiban wacamalan صaalixa inuu saas ku ducaysan jiray marka waa min asunna axaadiista nebiga ku soo aroortay ilahi subxana wa tacaala waa ka aqbalay imaam ibn اljazari ayaa u dhashay 9 bilood kadib markuu xajka saa uga soo noqday ayuu uurgalay sheekha imaam ibn اljazari 9 bilood kadibna wuxuu ahaa dhashay sanadkii 751 markay ahayd hijrada nebiga calayh الsalaatu wasalaam alimaam ibn اljazari raxmat ullah caleyh alimaam ibn اljazari markii uu soo koray markiiba aabbihii wuxuu geeyey cilmiga qur-aanka inuu xifdiyo waa nuqdo muhiim jiddan ah haddaad dib u baarto culummada islaamka oo dhan taariikhdooda mid walboo ka mid ah waxaa lagu leeyahay ama naxwo ha barto ama fiqi ha barto ama caalim fi luga ha noqdo ama caalim fi lxadiid ha noqdo meesha laga wada bilaabo maxay ahaan jirtay an yaxfada alqur'aan kow qofku inuu qur-aanka xifdiyo oo culumta diinta uu dalbo markaas ayuu kusii tawasuci jiray oo maaragtay si ballaaran cilmiga usii qaadan jiray ilaa cilmiga meesha uu oga takhasusay uu ka gaaro imaam ibn jazari raxmatullah caleyh waxaa la sheegay inuu qur-aanka xifdiyey asagoo 13 sano jiro 13 sano markuu jiray xafada alqur'aan wabada'a fi alqiraa'aat al-7 ثuma al-10 raxmatullah caleyh qiraa'aadka ayuu markaa usii gudbay waxaa la sheegay sanadkii ugu horreeyey ama ijaazadii ugu horreysay inuu ku qaatay asagoona aana qaangaarin biqira'ati abi camr albasri alimaam abu camr bn calaa albasri oo ah qiraa'ada ay soomaalidu marka hore qur-aanka ku akrin jireen ayuu ku qaatay baa la yidhi ijaazadiisa ugu horreysay maxaa la yidhaahdaa uu ku qaatay asagoo aan lam yabluq asagoo weli aan qaangaarin marka halkaa waxaa laga qaatay qofka ha yaraado ama ha weynaado hadduu qur'aanka itqaaniyo oo shuruudda laga rabo uu itqaaniyo oo xifdiga laga rabo uu itqaaniyo sanadka wuu qaadan karaa annaga wayna soo martay axadu طulaabina ilahi subxana wa tacala ha barakeeyo ayaa maaragtay wuxuu gaaray annahu khatama alqur'aan wa atqana wa maaragtay qur-aanka inuu itqaaniyey oo qur-aanka uu xifdiyey asagoo yar oo 13 sano jiro culimmada markaan u bandhignayna waxay yidhaahdeen laysa hunaaka maanic wax diidaya ma jiro in qofka uu sanad ku qaato 13 jir iyo 14 jir iyo imaam ibn jazari kitaabadii ugu horreysay wuxuu alifay 16 sano asagoo jiro dadka ayuu imaam u noqday markaas asagoo dadka taraawiixda tujinayey raxmatullaahi calayhi kadib wuxuu cilmiga qiraa'aadka iyo culumta diinta uu halkaa ka bilaabay magaalada dimashq isagoo ku akrinaya culimmadii magaalada dimashq joogtay wuxuu qaatay qiraa'aadka wuxuu ku akhriyay culimmadii maaragtay magaalada dimashq markaa joogtay ayuu cilmiga ka qaatay markuu cilmigiisa uu xasiliyey oo culimo badan uu ka qaatay oo magaaladiisa intii joogtay culimo uu ka qaatay sida caadada culimmada ay ahaan jirtay waxay bilaabi jireen rixlaadka alrixlatu ilaa talab alcilmi in loo rarto oo la aado maxay si cilmiga loo dalbo alrixla ilaa talab alcilm bada'a bacda dalika alrixla ilaa talab alcilm in sha allah waxaan ku daraynaa marmar biluga alcarabiya maxaa yeelay waxaa nala joogo walaalo aan soomaaliga fahmayna marka marmar baan yaan ku daraynaa niqaadka muhiimka ah luga alcarabiya shiikha
وحوني يستئنوا الرحلة إلى طلب العلم. ولذلك قفكم مركو دالين يراديها إنه علمي كود داله وعلمي حصليه أو قعنتك وقبته مركو دالين يراديها وحالم إذا مركو أرضيه أنت أون الشيخ نقنين أو أنا لصو معركتي دتكو أين كتابه أسوق عادنين إنه جهد بحي هذا ما أنت يتو أرضيده رجع أرضيده طلاب تاع هدرتن فرصة ده إيه هيستان دتك معلمين تودا ما هيستان معايا لدتك معلمين تودا مشاغل فربنا ما كفر صوصاص ما مشاغل فربنا ما كفر هل كان بالله دريا دكسيها وحكدك خطبة مساعد كان كسر جيدي كتاب هبل الآخري مركا السجي حلي وسكور مريو علمي وكود ضلبه أيوة وايه سيدا لجوري أبو هريرة غيره تسودوا تعلموا قبل أن تسودوا وحبرت أنت أنا لإذن دوبين أو ما ركت السيد اللي إنكار لجينه دتكو أما أي حاجة دغن كأيو حاجة عضي لماذا أيو أين إذن صدوا فريسان أم حاجة علمي أنا لجو صدوا فريسانين محيا لمركا وحاد عدون تينات كم مشكوشت أو ما ركتي أتفرقة وين مركا رجع طلاب علمي ما أنت فرصت في عم بهستان إن علمي بدن حصليان إمام الجزري وحوني يستئنوا أندلس وضعفه سوء علمي وقصوقاته أحد العلماء المشاهير علمي القرآن سنة كيس نك سنة أدونك مركا أو سنة كسرية النبي أقوله عليه الصلاة والسلام سنة كواتق أنا سوما سنة قرآن كقف مركو برتو كدي بشيخ بوكو آخرنا يا شيخ إجازة كويس كدو الآخرين شيخ وكسحي markuu ka saxo ogaado qofkan inuu yahay qof quraanka sii gudbin karo oo sii tabin karo markuu ogaado marka hore qofka quraanku uu xifdin sooma ardaynimada iyo casharkii uu ku xifdin kadib wuxuu iimaani inuu sanad ku qaato si loo hubiyo inuu quraanka qof sii gudbin karo uu yahay markuu sheekha ku akhriyo oo xifdiyo quraanka oo tajwiidkiisa iyo nutqigiisa lagu kalsoonaado ayaa sanad la siin sanadkaas oo asaga ka bilaabanayo مثلا أنا وحني عمر أيان هاي شيخي أيان كوري شيخي فلان بن فلان وعن شيخه فلان عن شيخه فلان عن شيخه فلان إلى أوكجارو نبي عليه الصلاة والسلام صحابة أيو كل عيامات كم ده كذب صحابة وكسي جود بيا وحقوق جود بيا إنه النبي جار عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب عن جبريل عليه السلام عن رب العزة مركز القرآن كان هذا أركيسان بالروايات كل ورينا يو أو ما أعرف تلالي الشيخ حمزة أساس قبو كسائي باسدا يري حفصة سدا أخري ما أعرف تي كتابك قرنا كلية ما هينه قفل بأفكي سأيال لجس حي محيل قفك أفك علماء هدونا كقادم القرآن كانوا غلط وأخريابا لجيابا مركز سندك أو عالي سنة سور هذين يأيو حقوق عن صدي ذلك أندلس الذي يجري وإسبانيا هذا مالك كتال أسوأ هالكو جوجي دمشق بجوج سوما هالكو سعدا وحو سعدا إسبانيا ديار مجري سوما تقول لي ما مجرين ديور ما مجرين وإنه مرنا مركب فوله مرنا أقول ويو مرنا وماركتي رتيجيس أما رتي وركوب صدا وهكذا إلى إسبانيا كجارو لطلب العلم علمي ورهادين أقول أنا وحلاقي أمام مقالة حافظة قف علمي طاهركو عينو نلجوه أو أنا سيدا ويجن أو نحن والله وح عن كبرتان الله مع ذلك حلاقي قف كينو ده وح عن كبرتان الله وحكاسي درن أحيانا قفكو حلاقي بينو كير هذا أنا أقول سكشن تريما دجنا هاي علماء إسليبة دجين تو ألف كي مالها ستجين مركز أب بأفق هاي هالكاس أنا علمي وما دونا كوربا ما قال الله سعود مارته تو ألف كي لا هذا وده تو ألف كي سيجس كي بالفوق مية شيخ إسباني وسعودي مركز أبيه أيا كباجيو وحكويري ماركتي وأبقي ما دام نند عليه رأوها رحمة الله عليه رحلات كي مركز جزيرة العرب لحدة الجزيرة العربية أيوب بلابي رحلة دي أقول رئيسي وحكوسو هذا أرض الحجاز مكية مدينة وحو هذانا قرآن كي قراءات كي وكقاتي علومة إسلامك ومر لبعد كقاتي علومة دي حجاز جوكت كدب رحمة الله عليه وحو مغلي سوق دي مقالة القاهرة وحلقة يكون ولايين علومة ووين وقرآن كأه إلى يومنا هذا قاهرة ومارت متميز بكوتهاي وآد بيوغسو عنتي مقالوين ككلا مركز شيخ وحو بلعب رحلات كيسي إلى القاهرة صدح الرحلة أما صدح سفر أيو كو آدي سنة ذاك لدون إلى أي سديت سنة أيو صدح مركوس ونقضي رحمة الله عليه سيو علمي قوغا طلبة رحلة ذي كوبات يا رحلة ذي اللبات وحاول حيث صدح سنة وعكسو آخري علماء ومصر كو أركي قراءات السبع ثم القراءات مارتي
asagoo haddana ku akrinayay maxaa la yidhaahdaa asaaniid kala duwan iyo riwaayaad kala duwan iyo qiraa'aad kala duwan. sanad 3 sano kadib mar kaluu haddana rixlo ku yimid, markaa kadib haddana dhowr sano mar kaluu ku yimid, intaasna cilmiga ayuu sii korsanayay. walidaalika qofku waxaa la rabaa marka hore an yatluba alcilm, cilmiga inuu dalbo oo culimmada ka qaato, markaa kadib uu u soo jeedsado ummadda islaamka inuu baro si uu uga mid noqdo culimmada diintan laga dhaxlay. oo imaam ibnu aljazari waa u jeedaan maantayta halkan baan u fadhinaa 800 sano asagoo mootan ayaan hadalkiisa halkan ku haynaa raxmatullahi calayh. inuu qof muslim oo ibnu aljazari hadda aan aqoon waa naadir. dadka cilmiga barto oo dhan way garanayaan, oo yaraan dadka ummiyiinta ma aha, dadka wax akhristay oo dhan imaam ibnu aljazari way garanayaan. wayataraxamuuna calayhi, naxariis bay ilaahay uga baryaan, raximahullah raxmatullahi calayhi ayay ku hayaan. marka cilmiga inuu qofku dalbo kadibna uu sii gudbiyo. cilmiga markuu dalbay kadib imaamka raxmatullahi calayhi wuxuu bilaabay inuu cilmiga faafiyo. magaalada dimashq ayuu ku soo noqday, wuxuu ka asaasay daaru lqur'aan alkariim, madaraso iyo markas la yidhaahdo daaru lqur'aan alkariim. halkaasoo uu dad badan oo khalqi badan uu ugu faa'iideeyey, cilmigana uu ku faafiyey. sidoo kaleete wuxuu wax ka dhigay oo loo cayimay inuu wax ka dhigo almasjid alumawi. almasjid alumawi aw aljaamic alumawi. aljaamic alumawi waa masjidka ugu weyn maaragtay culimmada waaweyn ay fariistaan. isagoo 20 sano iyo in la eg jiro ayaa waxaa loo dhiibay raxmatullahi calayhi inuu ka mid noqdo dadka iftaaga iyo tadriiska loo xil saartay aljaamic alumawi. dhowr iyo 20 sano unbuu jiray marka ayada ah. weliba wuxuu leeyahay masjid aljaamic alumawi wuxuu lahaa qubooyin kala duwan oo macnaha mixraabyo kala duwan oo cilmiga laga soo jeediyo. midda ugu dhaxayso waxaa la yidhi waxaa gaari jiray qofka cilmiga meel sare ka gaaray. marka hore qofka waxaa laga yaabaa qaybaha gadaale inuu wax ku dhigo sooma masjidka, laakiin inuu qubada imaado masaajidka ugu weyn ee ugu dhaxaysay cilmi weyn baa lagu gaari jiray ilaa halkaasuu gaaray isagoo dhalinyaro ah. kadib imaamka raxmatullahi calayhi wuxuu u guuray ama uu rixlo cilmiga dalabulcilmiga uu u galay ilaa bilaadi turkiya. dalka turkiya oo bilaad ruum awal loo yaqaani jiray ayuu maaragtay rixlo u galay si cilmiga ugu soo nashriyo. دكتور أيمن سويد وحوشه رحمة الله عليه إله سبحانه وتعالى هبركية دكتور مقري عاش دكتور أيمن سويد قصة هذه عجيب أو كسابسا إمام ابن الجزري سيدو تركيا كتجي تركيا مركو تجي نين أتجي شقا مع هينه وحوها نين هذا علم إنه فافيه سيد عادي قدتكو وحعانة إنه يبحان رحلة إلى طلب العلم سما علم إلا الضلبوال هذا سما لكن قف سفر أقلي لأجل نشر العلم علم إنه صافى في أوجد وإحنا نادر واي مركا قصته حيلا هاي أسقوا مكجوجو أيان نحو كيري وحاجوكتو مقالة ذا ليلة هذا بورصة يقطع له دلكاس هذا تركيا دلك تركيا أو مركا أي حكوميين دولة عثمانيين الدولة العثمانية أيام مركا حكوميسي الخليفة بايزيد نكلا دي جري ayaa xukumayay marka wuxuu maqlay arday cilmiga quraanka aad u danaynayso oo rabta inay ka barato oo magacaada uu gaaray oo doonaya inay cilmiga ka faa'iideystaan ayaa habeen iyo maalin halka ku lug xiran waxay ku soo safraan ma haystaan. safarku wuxuu u baahan yahay dhaqaale Soomaa, dhaqaalihii ku soo safri lahaayeen oo sheekha ku soo raadsan lahaayeenna ma haystaan. markuu maqlay wiir wallahi dadkaas ayaa iga mudan maanta inaan aado meesha cilmi yaraanta laga sheegayo. meeshan cilmi badan baa yaalo magaalooyinkan waaweyn oo sheekhu uu joogay oo culimo fara badan baa laga helaya oo culimadiisii baa laga yaabaa xitaa inay joogaan. markii ayuu baxay baa la yidhi asagoo safar u galay masar wuxuu ka sii safray wuxuu sii aaday iskandariya magaalada iskandariya oo masar ka mid ah ayuu aaday. halkaasuu markab iyo doon ka sii fuulay xagga iyo turkiya u aaday. magaalo la yidhaha antakiya ayuu marka hore ku degay. markay ka war heleen nin caalima inuu yahay waa soo dhaweeyeen, waa martigeliyeen, maxaa la yidhahdaa dadka warkiisa isgaarsiiyeen. marka qisada la yaab kale oo maaragtay aad iyo aad cajiib ku ah waxaa weeye ardaydii magaalada uu u socday imaamku joogay ka mid ahaa magaaladii boorsa oo uu u socday arday ka mid ahaa ayaa jiray. ardaygaasi uu soo safray wuxuu ka soo safray magaaladiisii
isagoo go'aansaday inuu soo arko imaam ibn aljazari oo cilmiga uu ka soo qaato marka wuu soo baxay wuxuu imaaday magaalada antakiya ayuu yimid magaalada antakiyana yaa habeenkaa ku soo hoyday imaam ibn aljazari marka taalibu cilmigan ardaygan wuxuu go'aansaday inuu cilmiga dalbo oo imaam ibn aljazari uu soo arko xitaa hadday ku kallifto inuu masaajidka ka tuugsado lacag dadka isiga u dhaho inuu dalab cilmi si ugu galo sheekha uu cilmiga uga soo qaato marka waxaa la yidhi sheekhii ardaygii oo masaajidka iska fadhiyo ayaa nin maaragtay dadka ahlu masjidka ka mid ah ayaa arkay marka dadku way kala fiiro dheer yihiin wuxuu gartay ninkan inuu yahay nin marti ah oo maaragtay taalib cilmi ah oo meel aanan haysan markaasuu u yeeray wuxuu ku yidhi waxaan ku ujeedaa araaka taalib cilm musaafir maalaka ma cindaka maal taalib cilmi musaafir ah oo waxba aan haysan inaad tahay baan kuu arkaa marka wuxuu yidhi haa nacam sidaas weeye marka gurigiisa inuu ku martigeliyo ayuu weydiiyey waa ka ogolaaday way israaceen gurigiisay tageen habeenkii bay sheekaysteen habeenkii markay sheekaysteen ayaa wuxuu oga sheekeeyey rixladiisa iyo meeluu u socdo wuxuu ku yidhi halkaasaan u socdaa markaasuu yidhi ninka aad raadinaysid oo maxamed ibn aljazariga aad raadinaysay ood u socoto safarka u ahayd magaaladaanu kusoo hoyda caawa magaaladaanuu joogaa ninkii farxad ayuu la duuli gaaray maxaa la dhihi jiray qofku markuu farxo فرحت إنه لبي بو كسكت سومان ومن الفرح ما يبكي يعني بعض الأحيان الشخص يبكي من أجل الفرح فلما علم هذا الطالب أن الإمام ابن الجزري موجود في مدينة أنطاكيا كاد أن يطير من الفرح سيدي هجرين إنه مارت فرحت درتد وطولا أيو كسكت مركب حكوير نينك مرتقلي عاو مسيحانا إلا يا إمام ابن الجزري أنا أركو لا أنام إلا أن أراه markaasuu ku yidhi waa sheekhu waa joogaa waa la martigeliyey anaana kuu geyn doonee iska joog berri baan kuu geynaynaa mayuu yidhi wallahi laktaxalat caynii binawmin xataa araahu inaana indhahayga aynu ku indha kuulanaynin hurdo ama aana seexanayn ilaa imaam ibn aljazari aan arko caawayto markii baa la soo waday ninkii martigeliyey baa la raadiyey gurigii baa loogu keenay sidaasuna ilahi subxana wa tacala ducadiisa ku aqbalay bal fiiri dalab cilmiga halkaa waxaan ka qaadanaynaa hamiga qofka uu dalab cilmiga u qabay waa kow iyo qiimaha culimada ila lahaayeen anaga waxa laga yaabaa culimadana inaan iska fududeysano soo ma in culimada gaar ahaan dadka Soomaalida culimada aad u weynayaan waxa laga yaabaa wadamada kale islaamka ah sheekha wuxuu ku hadlo dhanba inay qoraan anaga waxa laga yaabaa mashaayikhdanada waaweyn sida sheekh Cabdul Ali Suufi sheekh Maxamed Abdi Umal sheekh Maxamed Dirir wa غيرهم من العلماء الكبار in ay naag joogaan oo nan ka faa'iideysan kutubta ugu waaweyn caalamka islaamiga hadda soo baxday waxa laga sameeyay hadalkii sheekha iyo majaalista wuxuu ka sheegi jiray iyo cajaladihiisa baa la isku ururiyay maktabada dhan baa laga dhigay marka halka waxa laga faa'iideysanayaa si culimada ugu weynaynay sheekh imaam ibn jazari wuxuu ku nagaaday dalka Turkiya dawladii maarta al-Uthmaniya Bayezid xilligu uu xukumayay al-Khalifa Bayezid rahimahullah Bayezid ayaa ka war helay inuu nin caalim yahay waa karaameeyay meel buu dajiyay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku karaameeyay marka inuu meel fiican uu helo iyo nolol fiican isagoo u soo baxay marka hore inuu cilmiga faafiyo oo niyadiisa aynan ahayn inuu helo shaqo ma wuxuu rajeenay mishaar ma rajeenin gurina shaqada marka la soo guri la isma siiyo badal sakan wax la yiraahdo la siiyo qofka macnaha waxa la siinaa guri sooma guri iyo mishaar labadiiba uu helay umana socon wuxuu socday inuu dadkaas la sheegay inuu quraanka soo bara oo yaraan inuu rag culimo ka soo saaro ka soo tago saas ay culimadu waag hore sameyn jireen magaali u safrayaan tafsiirku u dhameyn rag uu hubo ayuu meesha uga soo tagay uu ka safray magaalo kale u aaday sida siirada aan ku arki doono siirada imaam ibn al-Jazari rahmatullah alayhi muddo markuu halka joogay ilaa 6 sano ilaa 7 sano markuu joogay ayaa la soo weeraray dawladda al-Uthmaniya waxa soo weeraray qoladii la oran jiray at-Tatar aw al-Maghuliyun Maghuliyinta Tatarka ah oo dalka hadda Mongolia la yiraahdo iyo xuduudda Chinaha inta ka soo sokaysay Serbia area degan waxay ahaayeen niman dagaal ku inkaaran waa dadkii muslimiinta laayay ee magaalada Baghdad soo galay 656 magaalada Baghdad soo galo dadka baabiyay oo la oran jiray at-Tatar aw al-Maghuliyun laakiin waaga ka dambe way islaameen
ragga hogaankooda hayay baa islaamay hase yeeshee nin ayaga ka mid ahaayoo la odhan jiray Timor-Lenk ayaa waxaa la sheegay wuxuu ahaa nin muslim buu ahaa laakiin weli waxaa ku dambaysay maquuliyiinta ama tataarku waxay ahaayeen dadka aad u laayo awowgiis Genghis Khan baa la odhan jiray waa ninkii muslimiinta Baghdad 1 milyan ku dilay maalmo gudahood laakiin ayaga ilaahay amarkiis way islaameen marka nin dagaal badan buu ahaa adduunka dhan inuu qabsaduu rabay muslim buu ahaa laakiin weli waxaa ku dambaysay dagaalkii iyo maaragtay ay ka dhaxleen dadka ugu dagaal badan adduunka ay ahaayeen xoolaha oo hilibku cayrin bay cuni jireen dadkay meelay soo galaan dadka dhan way baabi'in jireen marka wuxuu soo weeraray si uu qabsado dawladda Uthmaniya iyo Turkiya meeshii Bayezid uu haystay buu soo weeraray markuu soo weeraray waxa la yiri Bayezid waa la xiray waa la qabsaday oo amiirka ahaa oo sheekha laftiisa uu sheekh u ahaayo maaragtay wiilashiisa wuxuu dhigi jiray waa la qabsaday wuxuuna ku dhintay markii dambe xariga imaam ibn Jazari waa la qafaashay asagana waa la qafaashay dadkii qafaalka lagu qaatay oo asrada ahaa buu ku jiray xaggaas iyo maaragtay dhinacan hadda Mongolia ay ku yaalaan Aasiya Wusta ama Central Asia dhulalka ka sii shisheeyo ayaa la geeyay halkaas asagoo asiir ah ayaa la geeyay Timor-Lenk marka muslim buu ahaa inkastoo nin dadka muslimiinta weeraraya uu ahaayo raba inuu dawladdiisa faafiyo markuu meel weeraro wuxuu sameyn jiray baa la yiri wuxuu soo wadan jiray culimada مثلا wuxuu weeraray Dimashq oo kale ama Baghdad rag culimada uu soo waday magaaladiisu keenay halka wax ka dhig u leeyahay markii imaam ibn Jazari buu soo waday halkan joog buu ku yiri imaam ibn Jazarina fursad buu ka helayba talabatu ilm iyo cilmi uu faafiyo meesha ka helay waa asiir halka kaba bixi kartaa lagu yiri laakiin talabatu ilmi waa halka ka helay marka halkaas waxa qiraa'aadka oo qaatay oo ku akhriyay خلق كثير أيها هالكاس قرآنك كو أخري رحمة الله عليه أو مارتي كفائديستي إلى مدة 4 سنة أيها هالكا جوجي ضد بدن أو علماء أو أرددي سكمدة أو أسانيد كقاطبة جرو ضد قرآنك أيها رمين وكسو تين واجري هجرة مركا سديد بقولي تضبط أيور دنتي نينكي لورين جري Timor-Lenk كدبوا سوها يشيخو كسو تين أساقو نيادو كو قبطي بل ماشي وكيمد inuu ku noqdo iyo maaratay iyo dhulkiisi inuu dib ugu soo noqdo marka safar dheer ayuu soo galay safarka markuu soo galay kolba magaalo ayuu imanayay magaaladaas ayuu adenin caalim uu ahaa oo meel fogna ka fikirayo magaalooyinku soo maray Khurasan baa kamid ahayd halkaas ayuu ardu Khurasan markuu soo galay bilaad Khurasan dhowr magaalo soo maray magaalo walba yimaadeen cilmigu ku faafinayay waxa uga qaadanay qiraa'aadka cilmi khalqun kathiir وصو صعدي هذانا مقالة يزد اللي يراهد أيو يميت هذانا علمي وكفى فيه مرلبات ضد بدن بخلق يا قرآن كأوقع قاطي هذانا مقالة أصبهان بوسو وريجي مركا إنتاس ومدو لبصنا تقريبا كل ما مقالو تجي رجع علماء أيو سو ساري أو قرآن كقراءات كحنباري ولذلك وحال إذا أردد ابن الجزري مال والبو عالم الإسلامي قال جهلا رجع كقاضي مالا بدن با يتجي حكمت أصبهان هلكا قرأ عليه خلق كثير مقعدو ذا الشيء يا مارتي شمس الدين فلان وهكذا قفل رجع وقعتي كتب تراجمت مطولات كا ويشيغيان أنا وسوق كوبينا تاريخنا إلى أوكسو جاري مقالة الشيراز مقالة الشيراز وكتالو حالي هذا ذلك إيران بيد عدا وأنا مقالة علمية رج بدن علماء كصوبح الشيرازي فلان الشيرازي رج بدن علماء يا كصوبحي شيخ wuxuu yimid 808 hijrada markay ahayd magaalada Shiraz halka ayuuna ku nagaaday in muddo ah asagoo cilmiga dadka halka ka baray oo maaragtay cabaar ku nagaaday waxaan ka soo tagay markii Turkiya uu joogay Turkiya tabcan uu degay waxa uu soo wiilashiisi iyo cidiisi iyo Turkiya ugu yimaadeen halkaas uu muddo deganaa oo maaragtay uu ku fiicnaa xaalkiisu ku fiicnaa waxa kamid ahaa ragii maartay nin la yiraahdo Abu Bakr oo wiilka sheekha ah iyo Abu Khayr iyo ragaas oo dhan Turkiya ayay ugu tageen halkaasayna ayaga rag culimo ah oo kitaabkan al-Jazari ninkii ugu horeeyo sharxay Abu Bakr ibn al-Imam baa leeyahay ولهذا علماء hore inta badan waxaad ku arki jirtay ninka sheekha ah wuxuu soo saaraya arurtiisu waxay ka dhaxlayaan cilmiga
تاج الدين السبكي يا أبي مثلا وحلو ليه السبكي الابن والسبكي الأب وهكذا مركا rag badan oo cilmiga ka dhaxlay ayuu dhalay imaamka waxa kamid ahaa Abu Bakr ninka la yiraahdo kitaabkan sharxay jazariyada ayuu sharxay waxaana loo yaqaanaa sharxu ibn al-imam sharxu maada ibn al-imam waana u iman doona insha Allah magaalada Shiraz sheekhu muddo deganaa qoyskiisina mar labaad ayuu isku soo duntay oo wuxuu si fiican u saldhigtay magaalada Shiraz halkaas uu deegaan uu ka dhigtay cidiisi iyo wiilashiisi iyo qoyskiisina halka ay ugu imaadeen muddo kadib taqriiban ilaa 12 sano ayuu magaalada Shiraz joogay xaj ayuu soo aaday intaas marka wuxuu wadaa ta'liifka cilmiga hada kutubta waaweyn caanka ah ee sheekhu uu alifay oo kamid yahay kitaabka la yiraahdo an-nashr fi al-qira'at al-ashr ama ma ay kitaabka la yiraahdo tayyibatu an-nashr iyo kutubtan waaweyn oo dhan wuxuu alifay inta ma maartay Tamerlank iyo ragii xaga u qafaashay intuu qafaalkooda ku jiray iyo intuu Turkiga joogay ayuu kutub badan alifay iyo intuu safarkan ku jiray marka saa ka dareemaysan wuxuu ahaa rajulun wahaba nafsahu wa umruhu lillahi azza wa jalla wa li nashr ilmi al-Qur'an ilmi al-Qur'an inuu faafiyo ayuu naftiisa siiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u abaalguday wakaas cilmigiisa meel walba u gaaray kitaabkan matn al-jazariya oo kutubtiisa kamid ah waxa weeye waa kutubta ugu caansan ee jazari tajwiidka laga barto shuruuxdiisa kaliya ayaa 100 sharx gaarayso ila 100 sharx ka badan ayaa la sharxay oo aqlabkoodu madbuuc yahay inta taabacan kaliya ayaa 80 ku dhow 80 sharx ka badan marka imaamku rahmatullahi alayhi wuxuu u soo safray inuu soo xajiyo ayuu u soo safray saan soo sheegnay intaas oo dhan cilmi buu alifay markuu soo safray xajka 822 markay hijrada ahayd ayuu wuxuu soo maray magaalada Basra xajka ayuu inuu soo aado u soo socday wuxuu soo galay dhulka hadda loo yaqaano bilaadu najd ama ardu najd najd waa riyaad iyo meelaha ku yaalaan qasiim markuu ariga yimid magaalada Cunayza la yiraahdo ilaa hadda way jirtaa madinatu Cunayza way jirtaa ilaa laan ayuu yimid si uu xajka u sii aaday marka waxa la socdo nin ardadiisa kamid ah oo rag cilmiga quraanka ka xambaaray kamid ah quraanku ku akhrinay wadada soo safar Soomaaliya soo ahayn safarku ka faa'iideysanay meel Allah marayaan laana waa xaafid sheekhina waa xaafid hada culimada markii quraanka lagu akhrinayo oo quraanka maaragtay ardadu ay qiraa'adka ku qaadanayaan 10 qiraa'o in la akhriyo wax sahlan ma aha Soomaa marka waxay sameeyaan sheekhu markuu dhaqaaqo ardaygu wala dhaqaaqay sheekh markuu gaari wado meel buu u socdaa mesela sheekh hal saac uu soconayo uu yeeri wuxuu leeyahay kaalimo halkan soo fariiso sheekh fariiso sheekhana gaarigiisu wata ardaygina quraanku akhrinaya saasa qiraa'adka lagu dhameeyo culimada rag badan ku qaateen marka wadada intay soo marayeen magaalada Cunayza ayay ka soo baxeen wadada ayagoo soo maray ayaa waxa qabsaday niman tuuga xilli walba way jireen niman mooryaan ah oo jidgooyo sameeynayo ayaa wadada u galay way qabteen waxay haysteen oo dhan bay ka qaateen kutubtiisa iyo buwaagtiisa wixii soo dhan xitaa waa ka qaateen keligii asagoo soo haray magaalada Cunayza ku soo noqday asoo nabad qabo sahay ma haysto waxba ma haysto musaafir buu ku ahaa qariib marka xooga xajkii baa sidaa ku dhaafay sanadka inta uu isdiyaarinay si uu u aado mar labaad ayuu halka wuxuu ku alifay kitaabkan la yiraahdo durrada waa maqasheen baan u malayn waa kitaabka qiraa'adka waa 7 oo imaam Shaatibi kitaabkiisa laga qaato iyo saddexda qira oo maartay dhameystirtay 7daas oo la yiraahdo thalath al-mutammima kitaabka laga qaato waxa la yiraahdo ad-durra kitaabka durrada la yiraahdo oo 240 bayd ah wuxuu tiriyay tuugadu markay soo qabsadeen markay soo celiyeen oo Cunayza lagu soo celiyay asagoo halkaas qariib ku ah oo musaafir ku ah ayuu halka ku tiriyay waqtiga soo faysan soo ma jeedin waa kitaabka ila aan laga qaato saddexda qiro qofku markuu sabcada dhameeyo oo shaatibiga uu xifdiyo maxaa la xifdisiyaa hadana durrada la xifdisiyaa kitaabka durrada la yiraahdo halkaas uu ku alifay waqti kooban buu ku alifay nin xaafid oo mutqin oo cilmiga ولذلك
kutubtiisii wixii laga xaday maxfuudkiisii buu ka tiriyey intuu xifdisanaaba wuxuu ka tiriyey saddexdan qiro cilmigii maaragtay laga rabay ayuu ardada usoo koobay oo halkaa uu ku tiriyey sheikha ayaa ku sheegay muqadimadaas aan dhehe matnigaas manduumada aakhirkeeda ayuu ku sheegay in la qabsaday iyo inay tuugada dili gaareen waa isaga oranayo غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال الباب واف وكيف لا غريبة أوطان بأهيد بوليه يعني وحن كتريي أيضا غريبة أوطان عدي سي هالكيد دقين هنا أغيمت شيراز هل كاسو شيراز بأغيمت مركوا غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال الباب واف وكيف لا أيضا مع مشغول كائي وحا أي هيستين oo waafi u ahaa maxaa yeelay waa qof musaafir ah oo sahaydiisi laga qaatay oo la dili gaaray waliba siduu sheegi doono sudidtu waxa ugu daran oo sheekhu uu ka sii walwalsanaa waxay ahayd in xajki ay ka hor istaageen xajki baa sidaa ku dhaafay sudidtu can albayt alxaraami wa zuuriya almaqaam alshariif almustafa ashraf almala baytka ilaahay baa laiga xiray buu leeyahy iyo maqaamkii nebiga iyo masjid nabowi inaan soo booqdo ayaa liga hor istaagay watawaqani alacraabu billayli gaflatan waxaa isweer naga qabtay buu leeyahay nimankii acraabta ahaa ee reemiyiga ahaa habeen famaa tarakuu shay-an hal shay noogamayna tegin buu wakidtu liuqtala in la idilo ayaanba qarka u saarnaa ama aan ku sigtayba faadrakani allutfu alkhafiyu فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفل إلهي بقى مركا نحريسيسي لطف الخفي إلهي بقى نقبت بهذه ولي مركا سوء عنيزة أنا نبدأ يسوع علي إلى ضد مسلمين هو قرقارو إلى مكة قارسية وكهلي بحملي وإيصالي لطيبة آمنا فيا رب بلغني مرادي وسهل ومن علي ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبي واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام ومن تلا marka halka ayaa laga fahmay sheekha inuu maartay dibka uu ku jiray mudada yar ee yasiirka ahna uu ku tiriyay aad ka dareemaysaa waa in cilmigu uu si fiican u biya dhigay nabiga hal yiraahdaa muallifka rahmatullahi alayhi wuxuu lahaa juhdi jabbaara fi at-ta'lif wa talab al-ilm wa nashr al-ilm wuxuuna alifay kutub aad u fara badan oo ay ka mid tahay manduumada hadda aan bilaabayno باذن الله تعالى مقدمة الجزرية أما المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه وحكمد كتاب التمهيد وحكمد كتاب النشر وحكمد طيبة النشر وحكمد الدرادي هذا عن شيء سيدو كلا علمي حديثك يوصول فقهك يلغضنا بارع بكوها شيخه مؤلفات وكل هي رحمة الله عليه meelo badan ayuu u safray meelaha uu u safray oo dhanna cilmiga ayuu ku faafinayay raxmatullaahi calayhi marka xajka uu ka noqday meelo badan buu usii safray meeluhu u safray waxaa ka mid ahayd yeman oo cilmiga uu halkaa maaragtay uu ku faafiyey rag badan oo arday ahna ay oga qaateen oo waxaa jirto rag maaragtay yemaniyiin ah oo cilmiga ka qaaday qaahira oo dhowr mar uu ku noqday asagoo cilmiga ku faafinayay dimashq oo magaaladiisii ah oo intaasoo mar uu noqday akhiiran sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu ku geeriyooday magaalada shiiraaz ayuu ku geeriyooday halkaa lafteeda wuxuu ka dhisay daaru lqur'aan alkariim waana meesha lagu duugay daaru lqur'aan alkariim daartii uu maaragtay uu asaasay oo cilmigii uu dadka ugu dhigi jiray raxmatullaahi calayhi wuxuuna geeriyooday taariikhda hijriga markay ahayd 833 min hijrati الnabiy calayhi الsalaatu wassalaam sidaas ayuu maaragtay noloshiisi ay ahayd الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه نولل كبوح ذي جهدي يطلب علم هذا نولشان صور شيء نوامحي وطلب علم اجتهاد ثم نشر العلم مركب مقام كعد أركيسان إلهي وجارسي جهدي فربض مكو جاري إله سبحانه وتعالى هنا جارسيه إله سبحانه وتعالى هنوفض ذي رمانتيو إن شاء الله تعالى وحناخرين دورنا مقدمة ده. بسم الله الرحمن الرحيم متن الجزرية المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي
الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. لينطقون ويجرت بعض النسخ ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. يقول حؤرنا يا راجي عفو رب سامحي كي رجيني dhaafista ama dhaafidda ama cafiska rabbigiisaasoo saamicin wax maqlaya. yaquulu wuxuu odhanayaa raaji cafwi rabbin saamicin kii rajaynayey cafiska rabbigaasoo saamicin ah mid wax maqla ah. saamicin bimacnaa mujiib, ajiibo ayaa halkan lagu wadaa. sida markaan tukanayna maxaan dhahnaa samica allahu liman xamida. ilahi subxana wa tacaala waa u ajiibaa qofkii maarata samica allahu liman xamida. muxamedun ahaa ibnu ljazariyi, jazari inankiisii ahaa. aljazari waxaa loo nisbeeyey jaziiro awowyaashii ay degi jireen oo ku taallo hadda maaragtay la yidhaha jaziiratu buutaan maxaa la yidhahdaa xuduudda turkiya iyo suuriya ku taallo ayaa loo nisbeeyey. marka qoyskao dhan ayaa waxaa loo yaqaanay aljazari, family nameka loo yaqaanay waxay ahayd aljazari. marka waa nisba ilى jaziirat ibn cumar oo tusama alآn jaziirat buutaan wa minha alcaalim اljaliil albuuطi raximah اllah muxamed bnu اljazariy الshaafiعي. ashaaficiyi loo nisbeeyey madhaban. alxamdu lilaahi mahadoo dhan lilaahi ilahay bay u sugnaatay. wasala allahu allaha u naxariisto ama naxariistiisii calaa nebiyihi nebigiisa dushiisa ha ahaato wa mustafaahu kii ilaahay uu doortay. lanna nebiga alay sla sl ilahay baa doortay sida uu yidhi ana waladu aadama walaa fakr ana sayidu waladi aadam walaa fakr wagayraha min alaxaadiid ayuu ishaaraya. calaa nebiyihi nebigiisa dushiisa ha ahaato wa mustafaahu kii ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala. muxamedin ahaa nebi maxamed wa aalihi naxariista ilaahay sidoo kaleeta ahalkii nebigana dushooda ha ahaato wa saxbihi iyo saxaabadiisii. wa muqri'i اlqur'aani naxariista eebe sidoo kaleete muqri'i اlqur'aan qofka qur'aanka qaari'u اlqur'aan iyo muqri'u اlqur'aan iyo xaafidu اlqur'aan ayaa kala jiro. xaafidu اlqur'aan waa qofkii qur'aanka xifdiyey laakiin aanan riwaayaat iyo sanad iyo qaadanin. maxaa la yidhahdaa qur'aanka isku keenay 30 juz maxaa loo yaqaanaa xaafid اlqur'aan. qofku markuu 4 riwaayad uu qaato ijaazo ku qaatana waxaa la yidhaahdaa iyo wixii ka sii badan qaari. 7 markuu qaatana waxaa la yidhahdaa muqri. 7 iyo 10 muqri baa la yidhahdaa. marka muqrida wax orod lagu gaara ma aha, waxaa weeye juhdi fara badan bay u baahan tahay. allahna gaarsiiyo. wa muqri'i اlqur'aani iyo qofkii qur'aanka muqriga ahaa ee caalimka ku ahaa dabcan xaafidkiina wuu soo gelayaa iyo qaarigii maca muxibihi iyo kii qur'aanka jeclaa ayagana naxariista ee bahgaadho. qof waxaa jira qur'aanka muqrina aan ahayn, qaarina aan ahayn, xaafidna aan ahayn laakiin qur'aanka jecel soo ma hay asagana naxariista ee bahgaadho. intaa markuu sheegay halkan shuraaxda qaar waxay sheegaan wuxuu ka tegey sala allahu calayhi wasalam in la dhahaa in la israaciyo ina kala harin baa asal ah bidaliil qowlihi tabaaraka wa tacaala fi suurati alaxzaab ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima. laakiin beydka markii la nadminayo ama gabayga la tirinayo marmar qofku macnaha waxaa ku qasbaya gabaygii inuu ku soo gaabsado marka inuu afka ka yidhi oo nebiga uu maaratay sallama tasliima
ساس وي معنا ساس على الوحم باريا وبعد انت كذب ويري إن وبعد انت كذب إن هذه مدة تاني أو منظومة تنا مقدمة هردعوي فيما كي أي هردعو تهي يجب واجب يهي واجب أي كتهي على قارئه قرآن كي أخريني قارئه ضمير كقرآن كانوا يعلنين على قارئه أن يعلمه إنه أوجاده مدني وهردع كسابسا علم التجويد والقرآن لأن علم التجويد كتبه وين بولي سوما تاني مركا وأهم الأبواب نوسو كوبيسا بابك أو مهم سن أي نوسو كوبيسا طيب وبعد إن هذه مدة تاني مقدمة وين أو كسابسا محي كسابسا تتعلق فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه واجب كقوة قارئ القرآن كإنه أوجاده فيما كيبي كساب سنتهي يجب واجب يهي يجب أن قدرنا على قارئه القرآن كي آخرنا أن يعلم إنه أوجاده شيء قاس إذ إلا واجب وحواجبه عليهم ضمير كيانو علننا وقراءة القرآن كآخرنا عليهم دشوا ذو حواجب كوة محتم لقوي واجب محتم يعني مفروض هذا نقول هذا شيء واجب حتمي محتم مقطوع مفروض إذ واجب عليهم ومحتم أو واجب كوة محتم مركوا محي واجب كل سيئتك قبل الشروع انت ينام باللعبان كهر الشروع وباللابسوي قبل البداية معناه قبل الشروع ما معنى شروع بداية إن انتينا باللابن كهر قبل الشروع انتينا باللابن انتينا باللابن قرآن كإن أخريان انتينا باللابن كهر الشروع مثلا شرع المعلم في شرح الدرس ما على قولها وباللابن شرع وامعي قبل الشروع انتينا باللابن القرآن كأخرين تيس أولا أقهرين با أن يعلموا إني أقادان مخارج الحروف حروف مخارج تيدي مخارج الحروف ومال حروف كصوبحان إني أقادان بواجب كوا والصفات هي حروف الصفات كده حرف والبحولي مخرج ماله كصوبح ماشو كصوبح هذا لقفتدنا غلط بنقريها إن شاء الله تعالى حوجا حنسار دونا مخارج الحروف والصفات وشيخ أكبل عابد دونا بقى كتابك قرآن كرم كنت تطبيق دونا بإذن الله تبارك وتعالى إن مخارج الحروف والصفات صفات كده أي صفات الحروف ليلفظوا سئوا دواقان لينطقوا ليلفظوا سئوا دواقان بأفصح اللغات لغات مدة أو فصيح سن سئوا دواقان معناها سيدي للربي إلا أو دواق سيدي أو فصيح سن سئوا دواقان بأفصح اللغات محرري التجويد محرري أيوه حقيقين أيوه تحرير هو تحقيق محرري halka moogtay idaafadii weeye naxwa ma ku soo dhigatan al idaafa idaafada hadii nuunta hadii idaafa ay jirto nuunka iyo idaafadu ma kulmi karaan muharririna inay noqotay ahayd marka waxa la yiri muharriri at-tajwid muharriri at-tajwid ayagoo sugaya tajwiidka wal mawaaqifi iyo joogsiga insha Allah taala joogsiga xoog baan saari doona inaan si fiican uga warano joogsiga biidinillah iyo ahkaamtiisa sheekhuna uu sheegi doona marka waxa loo baahan yahay in la isku taxallujiyo in joogsiga la barto laana quraanka hadaad joogsiga ka tagto macaanida quraanka aad ku ciyaaraysaa marmar waxaad arkaysaa qof ka bilaabanayo meel aad u xun waxaad arkaysaa qof ku istaagayo meel aad iyo aad u fool xun oo macnihi kharibayso marka ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr hasiyo بعض طلبتنا في هذا المسجد المبارك oo quraanka markay ka baxayaan waxa dareemaysaa waqfigi bay si fiican ugu xifdiyeen waqfiga waa laba nooc in qofku macnaha uu yaqaan oo la socdo macnaha iyo inuu kitaabka ku xifdiyo labada ayaa laga waayeen marka hadii laga waay hadaadan macnihi aqoonin oodan carabiga aqoonin oo meesha lagu waqfinayo aad adigu iska garan karin sidiisaad ku xifdinaysaa bacdu طلابنا Allah barakeeyo ragaan dhalinyarada aad u jeedaan rag badan oo kamid ah markay akhrinayaan la yatrukuna waqfan siduu yahay bay ku xifdiyeen bil waqf marmarka qaar hada kula meesha waqfi ma ku jira wuu ku jira beleen waa huba marka wuu xifdin karaa in lagu xifdiyo sheekhu marka wuxuu yiri
محرر التجويد أيقو التجويد كسوغيو والمواقف إيجوكسيغا وما الذي يكي رسم لغو رسميي في المصاحف مصاحفته رسمي وحال لها رسم العثماني واتقانا صوما عربي سيدا الله قرأ مصحف سوق قرأي مالي كوكلا دويني صوما محلو يقانا الرسم العثماني والصحابي عثمان بن عفان حلقي سيدي الله قرأي الرسم العثماني marka waad aragteen meelaha qaar alif yar baa dul saaran alifka lagu mataagayo sooma rahma oo marmar waxaad arkaysaa oo ta dheer u qoran sida asalkan waa in ta gaab noqoto marka waxa soo dhan buu ka sheekeynaa wama alladhi marka waa cilmi rasmi waa cilmi dhan oo kaamil ah oo kamida min ulum alquran sida ulum alquran ka tajwid maarta qiraa'aadka rasmiga cilmu fawasil alfawasil ama aayadaha iyo عد الآي علم تاس أيو لم يديهاي وعلم اللي يراد علم الرسم لكن الشيخ هالكم وحكو شيء جاية وحيابها مهم كأوه وقفي وحجروا وحيابها رسمي كاملة لكن مركي آيات اللي جو استاجيو أما حرف كاللي جو استاجي مهم وما الذي يكي رسم اللغو الرسمية اللغو قري في المصاحف مصاحفته العثمانية طبعا والرسم العثماني وعلم بدل لكن لما بابو كسوقات من كل مقطوع مذول بولا كلا جريعة وموصول مذول بول اسكو حريري بها أي فيها في المصاحف بهذا هل كان حرف جركة وحالينا والنائب عن حروف الجركة ويكلا نائب نقضان نحوها هنا كسو برتين بانو مالين ويكلا نائب نقضان مركا وموصول بها أي فيها أي في المصاحف ضمير كالكون غنيا مصاحف من كل مقطوع مذول بولا كلا جريعة وحاجره اريال اسكو حريري اريال كلا جري مثلا الا تعبدوا او waxaad arki isku xiriirsan sooma oo maxay tahay waa alif hamza aan iraahdo iyo laan shidan lam alif lam ku shidan yahay alla mar kalena waxaad arki ayadoo la kala gooyay ay ku jiraan suuratu hud bilowgeeda ألا تعبدوا إلا الله سيقول قرانتا مسكو حرانتا مسكو كالقوانتا رجع حفاظها يمد سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان تاكل قوانتا مسكو حران يا تن ياسين وكال قوانتا سوما تنهودنا واسكو حرانتا بداية سورة هود بنقوضها ألا تعبدوا إلا الله هي مدة كنت كجرت في نهاية سورة ياسين يعني هناك ألا موصولة وألا مقطوعة فالشيخ هنا يشير إلى من كل مقطوع مذول بول اسكو حريري يعني مركا هذه الاسكو حريري ولو استايكرا هذه استاغل وضع أن بعده لكن مدة اسكو دقن أن ملاليكرا مايا ويسكو دقن تسوما ألا هذا الشيء كويس تاكله هنا سأل له أجاده هنا لسعتت وحلها وقف اختباري وقف يدور نوع وقف اختباري ألا بالاستقبال وليه أن هنا هذا واحد مركز كلا جوانته من كل مقطوع وموصول يمد والبوس كحر السن بها أي فيها وتاء أنثى يتأذى ددق أو لم تكن آنا أهان تكتب مد لا قري بهاء هاء تأذى ليراد تاء التأنيث أما تأذى ددق علامة التأنيث كان مدة كجرته مثلا رحمة نعمة هداية وهكذا مدة كجرته وحاوي تأذى كجرته تأذاس وحاوي أصل كذا إن تاء مربوطة هاي تأذى الجامن إنت لكن القرآن مرمر بفرنتاي مثلا عندما نأتي إلى سورة الأعراف حزب كهراء سورة الأعراف مركان مرينه إن رحمة الله قريب من المحسنين في نهاية الصفحة هل كيبي السيبي وقرانتها ما فرانتها مسوى قاب وفرانتها وتعدير سوما مركا لغو استاغي محالده رحمة مسا رحمة ساسو كوضع شيخ وتايون ثاية تأذى لديك ولم تكن أنا هاني تكتب مثل أغرى بها إنوي هل كان أغاو بها إنوي لكن
محل وقتي لضرورة الشعر أو لضرورة النظم نظمك أما قبل أهان توحى الله ترينا ميزان بولي سوما بها إن هدي لنا ميزان كجبل سيدا أوجد يا بها لوي لبض بها مركب ما سكمت بمسوك الدوين تنهر وضمير بها به بها دي وضميرك بها أي فيها في المصاحف مدى لم تكن أنا هن تكتب مثل لقرة بها إنها لقروي مركا شيخو انتاس أيوه الشيء أبواب كلا أو هل كان مقدمة كل شيء إنه واجرته ولكن كتاب كسو أروري دونه إن شاء الله تعالى ما أنت انتاس كسو جبيننا خميس صوص عطو أيام حكى بلا بدونا بإذن الله باب مخارج الحروف بإذن الله تبارك وتعالى وحن ربائنا هل كان كسي شيء إن شاء الله تعالى أرضيدا وحلقة البنايا إني إلى عليان وقتها لا إيمانيو إن شاء الله تعالى الساعة 11 إنهم بلونه 10 الساعة 12 عندنا سي ما دام تسجيل حتى وجروا الله دوبايو ونوف فضلاته ما أنت تحوجا تأخر بقى يرجري مركز أساسا نوضع هنا كويت لبيتهم كبر عنو قارني مركز 5 ساعة مركز تاي كويت من كتير قلب كماها و5 ساعة مركز تاي إلى 6 ساعة أنت أيام كجري دونا هدو إلى هيرادو مركز إن وقت جيد للصو حاضره أو كهر لقى صوب حجوريها ومد لبعض إن شرح يسمع لو رجيستو الملاحظات كينا القرطان هدو إلى هيرادو كتاب كوالسكو حالس كرها باسلو كله ما له وبأنت الآخرية بري والسويدين قفل بوين وسوا حفظي حفظي أنا ولا مجد نمتك قاعدة أو قفك وراه مخارج الحروف لا ده هي لا مرة على مد حفظ متقنة أي لو بهاي أرضي كم مرة يودي سأوفي عنه حفظنا صوما سؤال ونكسن بهاي وحاول سدوا ونكسن الله حفظيه horta bacda fajrka wax la xifdiyaa duhurkii iyo saacatul qaanfuur iyo saacatul qaanfuur soo lama dhijirin iyo casarkii iyo markaad wareersan tahay habeenkii markaad soo daashay xilliga lama xifdiyo goorma la xifdiyaa bacda alfajr meeqa ku filan 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo inta beedo laga rabo beed walbo 20 mar ku celi waxadihi يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي وتكون علي حتى حفظت حتى تكون علي dadka qaar 20 bay ku xifdiyaan qaarna waxay ku xifdiyaan 30 mar qaarna 50 mar ma fi mushkila laakiin ina suqto baa la rabaa bas خلاص hadana beedka damaad u wareegi hadana hal mar baad isku wada xiri hadana qof baad ii dhigaysa dhih خلاص magaalada iska gali waa iska shaqaysani duhurka hadaad firaaqo yar heshid ama wadada intaad isli u sii socotid waa si akhrin يقول راجع في رب يا مارتي ابيادي baad korka saas uga akhrin ila iyo intii aad rabtay markaa ku gaartid هذا مركز سوون قنيس وآخر ومراجعه هبين كنا واد مراجعين وتمام مركز وأوكي وين لكن هذا تذكر هبين كمان يعني حفظين أضو مشغول صار هم حفظين كريس طيب متكلم هو مهم جدا فجر كمركز حفظ هل كهو وقتك مالك وين أطور مر حفظ هذا أنا مراجعيس مصحف هل كاسة تكون رداني سوشيال ميديا مركز مقايد فدنا صوم فيرنو إيش أكو حضو فيري قارينا بس رعدا لقيابه سي فيري أو سي آخري سيد الله حفظينا إن شاء الله تعالى وسياس إله سبحانه وتعالى هاي موافجيه هالوجود ذا إن شاء الله مركز في عنو حفظي سيد ولقى إلا وميسد مراجعة أثناء تقدرتد مركز ثاني إلا عليه إن شاء الله مركز كتاب كلا دميو وحاجر دون امتحان شاملة قفكي هل جلسة أو قبحه أو وضح سحفظي أو قبحه امتحان كذا نكون باصه قرآن كان إلى على الأقل شنجس كحفظ سن تجويد كأن صوب برانينا إلى حد كبير أو معقولة تطبيقين كره وهي سند أما إجازة متصلة إلى الإمام ابن الجزري إن شاء الله أيام بحين دونها أو سيأسعته علي هاي الشيخ محمد سعيد مثلا عن فلان عن المؤلف الإمام محمد بن محمد الجزري الشافعي رحمة الله عليه مركا أديك أنا بريك مالين وسيت بنيسا علمي قاس إن شاء الله تعالى dadka ayaad sii dhaxal siinaysaa marka shuruuda in la ilaaliyo raba qofki shanta juz inuu muraajaceysnayn waa inuu iska muraajaceeyo inta aan wadna 10ka shanta juz inaad iska sii muraajaceysid weeye saa sanadku u qaadatid qofki shuruuda ka soo bixi waaya sanadka shahaadan siin doona meel cid ma dhigi doona ayagana insha Allah shahaada ayaan siin doona laakiin dhalinyarada lama rabo inay min al-aan dhahan oo aniga shahaadadaas aan iska rabaay ya meel fog baa laga fikiraa Soomaa waxa la yiri maadada markii aad imtixaanka galaysid هذا ترى هذه والله ما أدري أن أنا سجب باسان رواد كله
konton haddaan helo alxamdulilah haddaad tidhaha tamam laakiin haddaan dhahdin siddeetan baan rabaa toddobaatan baad keeni boqolkiiba boqol baan rabaa haddaan dhahdin sagaashan waad gaari waa wax la huboo la tajrubeeyey ya hadda haddii halkan lagu fariisiyo lagu dhaho maantayto subaxi bacda alfajr ilaa maqribkii weeye shaqadaada 6 saac markii la marayo maxay kula noqon waxaana fogey waxaana dhaweyn soo ma wax caajis miyaa dareemi caajis ma dareemaysa laakiin haddii lagu dhaha shaqadaada waxay soo bilaabanaysaa bacda fajrkii ilaa 6 saac bay ku eg tahay 4 saac markii la gaaro waad halaaqon waa daali wax walba waa niyaday moogta waxaa le waan daalay waa goormay dhammaatay 6 saac waxay dhammaan adoo tacbaanay haddii maqribka lagu dhahana leannu meela u socotaa fog soo ma hadda haddaan u socdo maalan oo shariika haddaan u socdo madiina mool maxay la noqonaysaa soo wax dhow ilama noqonayso maba dareemaysidba laakiin madiina mool haddaan markaan u socdo halkan dhow markaan marayaan bilaabay war waxaan leeyahay madiina moosh maxaa fogaan badana maanta way sii fogaatay marka annagaa albaabada iyo qufullada isku xirxirnimo ogi wax walba waa xifdin kartaan wax walbana waa baran kartaan shaatibiga waa xifdin kartaan durrada waa xifdin kartaan wax walbana waa xifdin kartaan biidn illahi tacaala marka go-aanka meel fog ha lagu xidho biidn illahi tabaraka watacaala aad baa u mahadsantihiin jazakum allahu khayr hada wasali allahuma calaa sayidina moxamed wajazakum allahu khayra